Maamulka dowladda hoose ee degmada Burco ayaa xadhigga jar ku sameeyay sariibad cusub oo ay ka hirgeliyeen IDP-ga Cali Xuseen. Xaafadani ayaan hore u lahayn goob sariibad ah oo lagu iibiyo hilibka, waxaana tallaabadani ay ka mid tahay dadaallada horumarineed ee ay ka wadaan maamulka dowladda hoose ee degmada Burco magaalada. Maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi Hiiro, xogayaha fulinta degmada Burco, ayaa ka warramay hirgelinta sariibadan iyo qorshayaasha kale ee horumarineed ay ka fulin doonaan xaafadani Cali Xuseen, waxaanay ku ammaaneen bulshada degan xaafadani Cali Xuseen sida ay u ilaaliyeen dhulka danta guud ah ee ku yaala gudaha xaafadani. IDP-ga waxaa la aasaasay 2003 baaxay, isla markaana sariibadan xilligaasaa laga sameeyey. ilaahay qadarkiisa may suuroobin ilaa imika ilaa maanta ka hor inay sariibadaasi shaqayso. maanta nasiibkeedu noqday inay shaqayso kawaankii hilibka ee magaalada xaafadda Cali Xuseen. taasi horta waa qodob wax ilaahay loogu mahadnaqo. dhinacan koonfurta waxaa ka xiga dhul bannaan oo sariibadu leedahay sida odayaashu sheegeen, weliba si dhiiran bay u hadleen. waxay dhahaan haddii contribution looga baahdana waa ku daraynaa. waxaan anaguna ballan qaadaynaa haddaan nahay maamulkii degmada inaanu u dhammaystira haddii ilaahay raalli ka noqdo. taasina waa taa. waxaa kaloo jira oo run ahaantii sariibadan maanta gacanta laga qaaday qof walba ama xaafad kasta isagaa dayactir wixii la sameeyo. xaafadan oo sida xogayuu sheegay la aasaasay muddo 20 sano ku siman, isla markaana loo baahnaa inay wada yeelato goobihii danta guud ahaa ee ku xidhnaa nolosheeda, ayaa mid ka mid ah maanta aynu nasiib u yeelanay inaynu maanta wixii ka dambeeya aynu ku shaqaysanno. oo hooyooyinkii bacadka taagnaa ee kaariyoonka hilibka yar ku sitay ama balabalada dabaysha yari ku garaacaysay inay maanta helaan meel asturan oo boosa oo ay ku shaqaysato oo loogu yimaado. degsiimooyin kastaana 2 qaybood bay u qaybsamaan, qayb dadku gaar u leeyihiin oo iyagu degaan oo hoy waa, iyo qaybta danta guud ah. qaybta danta guudna laba u kala baxaysaa wadooyinka la maray iyo goobaha dadku adeegyada ay ka helaan sida suuqyada, goobaha caafimaadka, goobaha waxbarashada, goobaha cibaadada, goobaha biyaha iyo goobaha ciyaaraha. waxaynu u baahannahay maanta Cali Xuseen wuxuu leeyahay goobtii nabadgelyada, saldhigii iyo xanaano fiican, dugsi baa leediin, ceelkii waa leediin. maanta suuqii horeeyay hilibkaynu furaynaa, ka qodradana insha Allah way ku xigsiinaynaa. garoonkii carruurta, arrinka qashinkana agaasimi iyo xildhibaankii arrimaha bulshada way joogaan. qiimeyn baa lagu samaynayaa maanta meelo badan oo Cali Xuseen ka mid ah baanu dheendheen ku samaynaynaa. waa idinku mahad celinaynaa inay ilaaliseen dantii guud ee beriga 20 sano ka hor markii meesha la sameeyey ilaa imika inay bannaan tahay oo ay diyaar u tahay in laga sameeyo wax dadka faa'iido u ah. marka maanta inaan inta ka soo gaarno intii kale ay bannaan tahay, isla markaana baahiyaha sheegaysan qaarna aan anagu garanayna aynu ka samayn doono. aad baan idinku mahad celinaynaa. gudoomiye adiguna waa mahadsan tahay. meelaha kale aynu garoonka ka samaynayno, meeshaynu qashinka ku maareynayno, meelaha kale aynu ka samaynayno arrimaha suuqyada, iyaga inaad soo gudbiseen doonaynaa inta aad hayso si aynu waxa ugu habboon u samayno. idinkana waxaan idinka doonaya inaan iska kaashano wada ilaashiga meelaha guud ee mideeya. dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana ka xog warramay muhiimadda ay sariibadani u yeelan doonto xaafadda Cali Xuseen xildhibaan Farxaan Cilmi Caalin Jeesto iyo sidoo kale xildhibaan Fanax oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland. qaar ka mid ah bulshada xaafaddaasi ayaa dhankooda uga mahadnaqay hirgelinta sariibadani maamulka dowladda hoose ee degmada Burco. maanta waxaan joognaa degmada amba xaafadda Cali Xuseen IDP. waxaa xadhigga looga jarayaa sariibadii oo dayactir ballaadhan markii hore bilowgeedii ay dowladda hoose dhistay, imkana dayactirkii iyo wixii ka dhinaa ay dowladda hoose ku soo kordhisay. xanaanada oo injineerkii dhisay uu joogo oo tir ahaan qaadaysa ilaa 47 meelaha 45 qof ay fadhiisanayaan. runtii farxad bay u tahay in dadkaasi ay ku adeegtaan oo suuq u soo kordhay ay noqoto. sidii suuqyada ay u shaqaynayeen ay u shaqayso maadaama ay ka durugsan tahay magaalada oo ay masaafo u jirto. runtiina ay iyaguna uga faa'iidaystaan sida ugu fiican una ilaaliyaan. maanta oo bishu tahay 26kii bishii 3aad 2023 waxaan halkan xadhigga ka jaraynaa sariibadii lagu talagalay hiliblayaasha
xaafadda cali xuseen dhulkuna waxa weeye 630 iyo 48 marka hadda waxa ka dhisan qaybtii loogu talagalay hilibka ama hiliblayaasha ee qaybtii sariibada maanta ayaa xariga laga jaray la furay insha Allah bismillaah kariim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu ka mahad celinaynaa waxqabadkan loo qabtay ay noo qabatay dowladda hoose ee Burco oo ah sariibadii xaafadda cali xuseen ee hilibka sidaa uu sheegay injineerku dhulku waa sidaana waa 48 xaqaana waa 630 dhulka qaybtan laga dhisay intii kalena way bannaan tahay oo sariibadu way bannaan tahay waa suuqii loogu talagalay xaafadda cali xuseen waxaanu ka codsanaynaa inuu marketka dhulka intan waa hilibkii halkii kale qudaarta iyo aan lagu iibin lahaa iyo dharka iyo dadku ay fadhiisan lahaayeen waa buucadan bannaan dhinaca naga xigta maanta noo yimid maayarkii degmada Burco maayar Cabdisaaq Xero iyo xogayii dowladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco runtii maanta ay farxad weyn bay noo sameeyeen oo aanan hore u haynin in muddo xaafadana waxa ay u baahan in maartay hesho goob sariibada oo dadku maartay ay adeegooda ay ku kala iibsadaan ama dadka ku caadiman dariiqada fadhiya ee wax ku iibinaya haday xoolo ku iibinayaan iyo haday qol ku iibinayaanba dhibaato weyn ku qabay haday tahay bacad iyo roob iyo alaabta ka dayacanta alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxay heleen sariibadiina maanta xariga laga jaray waxaan rajaynaynaa inay wax weyn ka tari doonto baahidii loo qabay sidoo kale maayirka degmada Burco waxa uu soo kormeeray xanaanada xaafadda cali xuseen iyo rugta booliiska ee xaafadaasi oo ay waqtigaasi ka socotay shaqo ballaarani